السلام عليكم. kusoo dhawaada imtixaanka xisaabta Puntland 2020 qaybta saddexaad. Haddii aan toos u bilowno, qaybta saddexaad waxay ku bilaabatay question 1 in the diagram right sawirka ka muuqda midigta. Write the coordinate of the triangle A. Waxaa qodhaa kulanada triangle-ka saddexagalka A la yiraahdo. Saddexagalka A la yiraahdo waa kana kulanadiisa qor. Kulanadiisa bartana ku qorayna. Okay, intaan wax kala samayn kullana aan si fiican u aamusano waa pointigaas oo ah pointiga dadka ka bilaabi kartaa saddexda kulan oo ah x oo -1 iyo y oo 4 ah kula triangle ka la yiraahdo question 1 triangle ka la yiraahdo qaybteeda a haydeeda isku sidaas jira triangle ka la yiraahdo kulanadiisa qoraynaa waxaan ka bilaabaynaa x oo -1 y oo 4 ah waa barta koowaad barta labaad bartaan qabsano x oo isla weli -1 iyo y oo 2 x oo -1 y oo 2 barta saddexaad uguna dambaysa x oo ah -4 y oo 2 x oo -4 y oo 2 okay done taakooda iska qabanay waa kulanada loo dirana soo saarnay su'aashana ku xigta which single transformation makes triangle B from triangle A sidee looga samayn karaa doorsoomid noocee rabaa in lagu sameeyo triangle B triangle A aan dhahay si triangle B uu soo baxo asalkii waxay haysataa triangle yaraado A waxaa rabtaa B inuu B ku soo baxo doorsoomid transformation doorsoomid noocee rabaa ku samaysid doorsoomida waxaan dhahaynaa iyaduna sida meesha ka muuqata waxay isku yihiin noqod bay isku yihiin reflection sida muraayad halkan muraayad aanay taalo kala aan moodaa sida isku yihiin saas waxaan dhahaynaa reflection ama noqod sida Soomaaliga loo yaqaano double I reflection obvious noqod ma qori kari sababtoo imtixaan ingiriisi reflection su'aasha xogta b waxaa lagu siiyey laba vector oo la yiraahdo AP A tiradiisu waa 3 4 aan qorano vectorka A la yiraahdo 3 4 vectorka B la yiraahdana asna -2 1 labada vector baa lagu siiyey haddaba waxaa lagu diray draw waxaa sawirtaa vectorada A gaar u sawir B na sawir kabacdina waxaa sawirtaa A plus B isku daridooda sawir marka A aan sawirno waan dhahno A waa 3 point qabso pointiga doonta qabso saddex god waa u socotaa midig socotaa plus waxaan loo soconayaa horizontal chief haddii plus tana waa midig saddex god qabso hore u soco 1 2 3 pointkaas ka soo go'an hadda pointkaas aan taagana afar godna kor u soco oo plus ayadana kor baa loo soconayaa 1 2 3 4 pointka ka soo bilowday ka ugu dambeeya line-kaas ku xiraa waxaa la yiraahdaa vector A falaartan waxay u jeedaa meesha uu ku dhamaaday ugu dambeynta meesha ka bilowday meesha ku dhamaaday u jeedaa haddana waxaan loo diray vector B ana sawirno vector B asna gaar baan u sawirnaa waa -2 point qabso pointiga doonta qabso -2 waxa u socotaa x markii hore plus bay ahayd midig baa u soconaa bidix u soconaa wada minus tahay 1 2 pointkaas aad tagno okay y-na hal god kor u soo isku xirka labada point waxa la yiraahdaa vector B taas waa B kaas waa A waxaan loo diray A plus B waxaad ku soo saari kartaa in aad iskugu xirtid vectorada A iyo B af iyo sin aad iskugu xirtid kabacdina meesha bannaan aad dhahdid vector ka soo baxo isku xiri kara waa A plus B maxaa kala tusaale ahaan kan laftigiisa isoo rar B isoo rar A baa toos ugu keenaya lama ogola inaad wareejisid soo rar keliya ama marka hore inta ku sawiro soo rar bartaa keen
okay done waxaan noo haray a baan samaynay b na waa samaynay a plus b waxaan dhahaynaa isku xirka a iyo b markii la isku xiro meeshii ee kasoo bilaabday ilaa meeshii b ku dhamaatay vectorka oh no vectorka halkaas soo mara vectorkaas yaa la yidhahdaa vector a plus vector b okay isku xirkooda okay su'aasha halkaas noo dhamaatay lagama dhamaan waxaan loo diray haddana waxaad xisaabisaa find the magnitude of vector a waxaa xisaabisaa dhererka caadiga oo vector a u leeyahay vector a meeshan si fiican u fiiri waxaan vector a halkan ka bilaabmay dhererkan waa 3 dhererkanna waa 4 waana labada tiro lagu siiyey waxay kala tilmaamayeen haddaba waxaa lagu diraaday dhererkan magnitude waa dhererkan caadiga waa dhererka caadiga ee vector hadda waxaa haysataa components labadii cadow ka koobnaa x iyo y laba cadow ka koobnaa x3 iyo y4 ka kooban yahay haddaba meesha si fiican u fiirso maxaa hadda haysataa meesha waxaa kaaga muuqda saddex xagal quman baa kaaga muuqda xagashi qumaneedna wataa x iyo y isku qotomaan 3 iyo 4 isku qotomaan saa darteed haysta 3 iyo 4 line-kana kaa maqan yahay saddex xagal quman caadi Pythagoras caadi aad adeegsanaysaa waxaan dhahaynaa kan waa shakaalka naga maqan magnitude-ka waxaan dhahaynaa magnitude-ka a vector a magnitude-kiisu wuxuu la mid yahay shakaalka saddex xagalkan shakaalkan qaayasa waxa lagu heli jiray a squared plus b squared oo la geliyay square root okay a square a ka danta u qaado 3 4 ka danta qaado okay 3 aan qaadano 3 square waa 9 4 square b na 4 ka u qaado 4 square waa 16 inta waxa ka saadhaa helo jbarka waa 25 helo jbar laga saaray oo ugu dambeynta la mid ah 5 units saddex 5 unit way dhererkiisu hadday labada dhinac ahaayeen 3 iyo 4 dhererka caadiga ah ee vector waxa soo baxaya 5 unit su'aasha ku xigta c given these complex numbers waxa lagu siiyay laba complex number 3 minus 4i 3 plus 4i kabana waxa lagu yiri waxa soo saartaa isku dhufashada okay c waxa lagu yiri waxa soo saaraa isku dhufashada 3 minus 4i oo lagu dhuftay 3 plus 4i caadi isku dhufo xubin kasta xubinta kala ku dhufo ama term tibix kasta tibixda kala ku dhufo 3 times 3 9 3 times 4i 12i 3 galada ku dhacaya 12i okay 4 kana minus 4 kana ku haray minus 4 waxa ku dhufataa 3 minus 12i minus 4i waxa ku dhufataa plus 4i minus 16i squared okay wax kale intaan gaarin plus 12i minus 12i means iskoosanaya meesha maxaa ku soo haraya meesha waxa ku soo haraya 9 minus 16i squared complex numbers I squared waxay la mid tahay markasta I squared waxay la mid tahay minus 1 I squared waxay la mid tahay minus 1 okay meesha I squared taalo meesha ku bedelo 9 minus 16 minus 1 meesha ku bedelo 9 laba minus isku dhacaya minus 1 ki minus 16 ka plus bay noqonayaan plus 16 which equals isku dar labadaas 25 su'aasha ku xigta question 2 waxa lagu siiyay matrix taxana a taxana b taxana c kabana waxa lagu yiri waxa soo saartaa a plus b c times b the inverse of c saddex su'aalood baa laga weydiin intaana wax kala galin waa maxay taxana matrix waxa aragnaa tirooyin taxanayn sa isku dulyaal isku feeriyaal waxay qabtaan matrix waxa ugu muhiimsan ay qabtaan waa transformation doorid shay bay ku dooranayaan shay bay ku bedelayaan gaar ahaan meesha taas uga muuqdaan waxa weeye vector inay ku bedelaan tusaale ahaan waxa haysataa waxa lagu siiyey
vector kale yiraahdo tusaale ahaan oo kale 1 0 baa lagu siiyey su-aashii tana gelin baa sharaxaad ku fogahayna 1 0 1 0 haddaa sawirtid tusaale ahaan oo kale ama aan dhahno 3 0 dana 1 dhihin 1 aad buu gaaban yahay 3 0 aan dhahno okay pointiga qabso 3 waxa u socotaa midig waayana waxba laba soconayo markaas ku dhamaanaya taamina waxa weeye 3 0 that's vector 3 0 okay waxa lagu yiri waxa ku dhufataa matrix kale yiraahdo waxa ku dhufataa 0 1 minus 1 0 matrix kale yiraahdo 0 1 minus 1 0 wax kala ma qabto aan ka ahayn inuu factorkii lagu dhufanayay laftigiisa 9 wareejiyo istaajiyo taamina waxa weeye hadaa laba hadda isku dhufatid waxa ku soo bixi doona saas u jiifi 9 xagal 9 wareej istaagaya taamina waxa weeye hadaa hadda isku dhufato waxa ka soo baxaya isku dhufan mayna laakiin hadaa isku dhufato waxa ka soo bixi doona soo taagan muxuu qabtay doorin transformation buu sameeyay uu dooriyay wixii wax kala ka soo saaray waxyaabo badan buu qaban karaa inuu ku wareejiyo inuu isku aruuriyo anuu si kala bixiyo dheereeyo anuu iskugu daro waxa dhan wareejin iyo kala jiidiyo waxa dhan iskugu daro waxyaabo badan buu qaban karaa matrix how matrix ka isticmaalkiisa ku xiranta tusaale kale aan bixino isla waxa haysanaa 3 4 kii 3 and 0 waxaan ku dhufta maanta matrix kale oo la yiraahdo 2 0 0 2 waa ku dhufta matrix kan wax kala ma qabto aan ka ahayn inuu dhererkii vectorkii lagu siiyey lama laabo taamina waxay wax soo bixi doona kan haddii 3 0 lagu dhufto matrix kan haddii lagu dhufto waxa soo bixi doona isla matrixkii laakiin horey loo kala jiiday laba laab laga dhigay halkaas u tagaya meesha oo 3 kaliya ahaa maanta wuxuu tagayaa 6 haddaba inta waxa ugu jeedana inaado waxa ugu jeedada inaan yaraahdo matrix wax kala nooma qabtaan matrix taxanayaashu wax kala nooma qabtaan shaqada ugu doonaa inoo qabtaan waxa weeye inay sheegay vectorkii ama functionkii noo dooriyaan noo bedelaan okay let's go marka su'aasha a-deeda marka aan tagno aan dhahno waxa la isku dartaa a plus b a aan soo qorano 1 3 minus 2 1 2 minus 2 waxa ku dartaa bana la yiri b ku dar minus 1 3 minus 1 3 8 2 0 1 okay inta isku dar wixii ka soo baxayna hore soo snow سيب لو ماتريكس ku darnaa xubin kasta xubinta ku aadan ama tibix kasta tibix ku aadan term kasta term ku aadan tira kasta tirada ku aadan baa ku darayna -1 waxa ku dar +1 waxa ku dartaa -1 way isla go'ayaan midda plus wata midda -0 -2 waxa ku dartaa 8 waa 6 kala jarmaya midda minus wata 2 waxa ku dartaa 0 waa 2 safka hoosana 3 waxa ku dartaa 3 waa 6 1 waxa ku dartaa 2 waa 3 -2 waxa ku dartaa 1 waa -1 that's it as simple as that b bana waxa soo saartaa isku dhufashada c b aan caadi isku soo dhufano ka bacdina aan sharaxno isku dhufashada laba matrix waxay ka macno tahay okay c noo soo qor c noo soo qor waa 2 2 3 2 waxaana ku dhufataa bana la yiri b ku dhufo b yaa way -1 3 waa soo sano akhrintan -1 3 8 2 8 2 iyo 0 1 intaas ku soo dhufo waxaan raacaynaa xeer matrixka isku dhufashada oo la yiraahdo markii la isku dhufanayo laba matrix waxaa la qaataa rowga ama chiefka kan hore waxaan lagu dhuftaa joogga kan dambe taamana waxa weeye waxaan ka bilaabaynaa rowgan waxaan ku dhufanaynaa column-kan marka xubin kasta xubinta ku aadan ku dhufano oo tira kasta ku aadan ku dhufano waa isku daraynaa waxaan ku qoraynaa booska koowaad
يعني بوسكان هذا كان أسقطنا برلاد كان أقول فاينا وحكوا قرينا بوسكان row 1 column 2 بوسكان أقول قرينا ساسا قرينا إلى كلامين أوكي زوجة يصرف مركب 2 وحكوا دفتا مركب 2 وحكوا دفتا minus 1 و minus 2 2 وحكوا minus 1 و minus 2 2 عندما وحكوا دفتا أيضا 3 يكون عندنا 3 تقول فوق وعميقة و 6 لا بس أسكت درينا minus 2 6 كدر و 4 4 كي waxaan ku qoranaa marka halka boos kowaad 4 baan ku qoranaa that's 4 xubinta kowaad 4 baan noo soo baxday xubinta labaad isla kana qaadanaa waxaan ku dhufaynaa groupkan isla tabtii oo kale aan ku dhufaynaa 2 8 ku dhufo waa 16 2 waxaan ku dhufataa haddana 2 waa 4 16 iyo 4 isku dar midna minus 16 iyo 4 isku dar waa 20 waxaan noo haray column saddexaad isla 2 2 waxaan ku dhufataa 0 1 2 0 ku dhufo waa 0 waxaan ma tarasayo 2 waxaan ku dhufataa 1 waa 2 gii 0 dii hore ku dar waa 2 geedi waa dhamaynay qaybta koowaad waxaan noo haray qaybtan aan u nimaano hoose 3 2 waxaa ku dhufataa barti ka soo bilow barti hore ka soo bilowdana meesha ka soo bilow 3 2 waxaa ku dhufataa minus 1 3 3 waxaa ku dhufataa minus 1 waa minus 3 2 waxaa ku dhufataa 3 waa 6 6 iyo minus 3 isku dar waa 3 marka go'ayaan waa 3 isla group waxaa ku dhufataa haddana groupka labaad 3 8 ku dhufo waa 24 2 waxaa ku dhufataa haddana 2 waa 4 24 4 ku dar waa 28 صف ugu dambeeya isla 3 iyo 2 waxa ku dhufataa qaybta ugu dambeysay 3 0 ku dhufo waa 0 2 waxa ku dhufataa 1 waa 2 geedii 2 0 ku dar sadarta waa 2 geedii okay intaas aan soo baxday saxana yep so yeah saxana haddaba maxay ka macna tahay waxaan iri ma kala baxsan sorry waxaan iri matrix taxanuhu wuxuu sameeyaa doorsoomid vector ama function uu ku dooriyaa ku bedelaa haddaba isku dhufashada laba taxane maxay ka macno tahay isku dhufashada laba taxane waxay ka macno tahay in vector la dooriyo laba jeer tusaale ahaan oo kale waxa haysataa vectorka la yiraahdo labadii vector aan tusaale soo qaadanay koraan soo qaadan oo ahaa 0 0 1 minus 1 0 vectorkan waxaan niri wuxuu sameeyaa xagal 9 uu wareejiya hadduu saa aha uu istaajinaya hadduu taagnaana uu sii ridaya 9 sii wareejinaya okay vectorkii kale aan niri uu kala jiidaa asna oo ahaa 2 0 0 2 labada haddaa ku dhufto vector la yiraahdo for example vectorkani hore 0 3 marka inta qiimeynay waxa dhahay hadda inta sameeyay tusaale hore soo qaadanay isku dhufashada laba waxay ahayd matrix isku laba matrix labadana kala isku dhufanayo laakiin bal u fiirso haddii intaan aan isku soo dhufto taamina waxa weeye haddii aan laba isku dhufto vectorka wuxuu sameeyaa matrix kood wuxuu sameeyaa kala jiidid 3 0 dii kala jiidaya wuxuu ka dhigayaa 0 0 kala jiidaya haddana aan kan ku sii dhufto 6 0 dii wuxuu ku sameeyaa haddana wareejin yani markii hore kii hore uu kala jiiday بعدين وريتشين لكن لو هذا اسكو دفتكر marka koowaad ka bilaabo aan ka bilaabin aan vector ku dhufto labada marka isku dhufto waxa ka soo baxaya tusaale ahaan oo kale adana waxa ka soo baxaya laakiin ka soo qaadana ka soo baxayaan a b c d isku dhufashada labada matrix ba ka hadlaya labada taxane a b c d ba ka soo baxay train aan garanayn ba ka soo baxaya inta waxa ku dhufataa 3 0 waxa ka soo baxaya waxa ka soo baxaya isla wixii ka soo bixi lahaa in marka hore 3 0 lagu dhufto ka hore كبعدنا لو وريتشيو كادن بالغلط تعملنا waxa weeye isku dhufashada laba matrix waxay ku soo koobaysaa laba step aha kala jiid wareej bay waxay ku soo koobaysaa hal mar kala jiididii iyo wareejintii hal step ka dhigaya soo kala jiidii wadana sii wareejinaya yani vector kan dambe hal mar buu wuxuu qabanayaa shaqadii ahayd kala jiid wareejina meesha waa labada vector baahay haddaba isku dhufashada laba matrix wax kama qabtaan aan ka ahayn laba step ahayd hal step ku soo koobaan sida su'aalaha ka muuqata okay su'aasha ku xigta the inverse of the matrix C waxa soo saadhaa baa yiri rogaalka matrix
C rogaalka matrix C waxaa lagu helaa qaacidan qorayna rogaalka matrix C su'aasha C haddii aan matrix C la yiraahdo haysto rogaalkiisa waxaa lagu helaa kow tusaale matrix C waa kana matrix C tusaale ahaan kasoo qaado kale matrix C waa kana waa A B C D waxaa dhahaynaa waa isku dhufo kow horta waa halkaa dhigo kabacdina AB ku dhufo AD ku dhufo AD waxaana ka jirtaa ka jaridda BC intaa waxaa ku dhufataa isla matrixkii hore C la oran jiray laakiin A iyo D la isdaba mariyay B iyo C na minus lagu dhuftay A iyo D isdaba mari maxay noqonayaan D A B iyo C tabtooda usoo qaado laakiin minus ku dhufo intaan wixii ka soo baxa baa waxaa la yiraahdaa rogaalka matrix C haddaba rogaalka muxuu qabtaa sidaan ku dhufashada u sharaxaad yar ka bixinayna isna marka hore su'aasha xalino okay maanta waxaa haysanaa matrix C la yiraahdo oo muxuu noo ahaa matrix C wuxuu noo ahaa 2 2 3 2 2 2 2 3 2 that's matrix C ka rogaalkiisa raadana liyo haddaba inverse of C waxaan dhahaynaa qaacidada kor toos raac markood 1 qoro kabadana waxaa isku dhufataa A iyo D isku dhufo A labadana noo ahay waa 4 waxaa ka jirtaa isku dhufashada labadan waa 6 isku dhufashada labadan yani waa 6 intaa waxaa ku dhufataa A iyo D oo la isdaba mariyay A iyo D maanta waa 2 iyo 2 sidaa darteed isdabamarinteeda waa 2 iyo 2 waa laga garan mayaan isdaba mariyay inkaa 2 iyo tabtu isoo qaado B iyo C na tabtooda usoo qaado oo ah 2 iyo 3 laakiin minus raac inta isku dhufashada intaa wixii ka soo baxa baa waxaa la yiraahdaa the inverse of matrix C okay intaas isku dhufan labada hoose kala jaro waa minus 2 therefore kor oo dhan waxaa ka soo baxaya horkalahan dhan waxaa ka soo baxaya minus 1 half waxaa ku dhufataa kana waa tabtiisa 2 minus 2 minus 3 2 intaas ku dhufo waa tiro caadiya tiradan waa tiro caadiya tibix kasta ku dhacsaa tiro kasta ku dhacsaa tan way ku dhacsaa tan way ku dhacsaa tan way ku dhacsaa tan way ku dhacsaa inta caadi isku dhufo okay 2 waxaa ku dhufataa minus half 2 half ku dhufo 1 bay noqon lahayd laakiin maadaama minus wato waxaa dhahaynaa minus 1 2 minus half ku dhufo waa minus 1 minus 2 minus half ku dhufo labada minus soo gogo'ayaan 1 kaliya soo haraya haddana 3 minus 3 waxaa ku dhufataa minus 1 half horta labada minus way tegayaan tiraduna waxay noqonaysaa 3 halves tan ugu dambaysa 1.5 inoo qori kartaa point caadi inaa qortid tan ugu dambaysa minus 2 minus half waxaa ku dhufataa 2 waa tii koowaad oo kale minus 1 therefore the inverse of the matrix C waa matrix la yiraahdo 1 1 3 over 2 minus 1 or minus 1 1 3 over 2 minus 1 kale okay waa maxay macnaha inverse waxaan idhi vector ama taxane matrix wuxuu qabto waxaa weeye waxbuu dooriyaa inversega maanta matrixka taxanaha C la yiraahdo waxbuu ku samaynayaa vector haddaa ku dhufatid vector la yiraahdo tusaale ahaan oo kale vector la yiraahdo A B wuxuu doonaa ha ahaado haddaa ku dhufatid wuu doorinaya waxbuu ku samaynayaa ama wuu wareejinayaa ama wuu kala jiidayaa ama isku aruurinaya ama isku marba wuxuu ku samaynayaa isku aruurin iyo wareejin waxyaabo kala duwan ku samayn karaya wuxuu ku samayn karaa translation anu caadi u rabo meel kale ogeeya asagoo waxba ku samayn anu meesha ka qabo meel kale u dhigo okay haddaba rogaalka C na muxuu samayn karaa rogaalka C wax kala samayn mayo aana ka ahayn inay shaqadii uu C qabtay uu dib u celiyo yacni wuxuu cagsi ku yahay C tusaale ahaan oo kale haddaa dhahna waxaa qaadataa vectorka la yiraahdo 3 0 waxaana ku dhufataa matrixka la yiraahdo matrixkeeni hore oo la oran jiray 0 1 minus 1
0 matrix kan muxuu ahaa waxa maahan wuxuu ahaa xagal 9 ku wareejiyo okay kani wuxuu ka dhigayaa haddaba uu wareejinayaa baalkisaan ahaa saan ka dhigaya haddii lacal aan kan inversiga raadiyo wuxuun baa soo baxaya I don't know waxa soo baxaya wuxuun baa soo baxaya aan iska dhahno x y w z aan dhahno inversiga kan a inversiga matrix kan a aan u bixinay waxa soo baxaya inverse cusub haddii inversiga cusub aa kan ku dhufatid maagta vectorkii aan soo bedelnay haddii aa ku dhufatid wuxuu u celinayaa dib vectorkii hore yani wuxuu cagsi ku yahay wuxuu ka soo horjeedaa wuxuu diidan yahay shaqada c baa waxay istaajinaysaa kii istaagnaa haddii aa ku dhufatid inversiga c bartii buu ku celinayaa waa baabi'i waa rogaal shaqadii buu rogaya and that's it